السلام عليكم أخياري كان وسيرونو أكتر كفيلم كنا تنوات رشدنا فيلم كان وحو كبلامي صغير أو سعودي سكول كان وحونا برانيا فاسو مركو سيدا واركنا وو كهليا ماني بماني كدا مساعدة يا يسكو سيجعلانيا ميل كستنا waa isku raacayaan waqti kadib walaashii waxay u sheegaysaa inay gabadhii safartay oo ay magaalo kale u guureen oo ay nacday asxaabtiisuna way ku qaslayeen sababtoo ah gabadhu jeclaa ayaa ka tagtay wuxuuna oranayaa maanta wixii ka dambeeyay dumarka oo dhan waan nacbahay sanada kadib waxaynu arkaynaa baanduu iyo faamiligiisa oo isla baxsada mise waxa ka hor imanaya Siruunu kadib waxa uu qaadanayaa baangada xaafadda oo dhanna waa uu ku eryanaya la ugu dambeyn uu qabto wuxuuna weydiinayaa sidee gabadhu jeclaata waayo barigan yareen waxaan ku heshiinay inaan gabdha jeclaan oo dumarku cadow ka dhigano waxa uu ugu jawaabayaa waa gabar shidan waana ka helay saaxiib mise rag badan ayaa meesha imanaya iyaguna waxay isku dayayaan inay ka baxsadaan mise saaxiibkii baanduu ay wax ku dhufanayaan isaguna waa uu badbaadinaya dhammaantoodna waa uu garaacaya kadib saaxiibkii gacanta ayaa nabar kaga dhacaya waxaanu geynayaa dhakhtarka Siruunu waxa uu weydiinayaa saaxiibkii iyo doonayay inay ku dilaan dhinaca kale waxaanu u tegaynaa nin la yiraahdo Reedy waana aabaha gabadhu jeclaaday baanduu raggii ay la dagaalamayeen isaga ayaa soo diray waxaynu ogeynaynaa inuu yahay gangsterka magaalada qof kasta oo caqabad ku ahna Siruunu waxa uu la heshiinayaa saaxiibkiisa ay u tagaan magaalada uu joogo una soo raali geliya ninka lagu magacaabo Reedy ama inanta aabahe Siruunu waxa uu iska dhigayaa sidii qof baqaya labadooduna kaarta ay ku soo heshiiyeen ayaa waxay ahayd in midba kale magaciisa sheegto wayna raali gelinayaan Reedy isaguna waxa uu ku oranayaa raggiisa albaabada oo dhan xidha gabadhiisa ayaan u yeedhayaa Siruunu marka uu horreysay uu arko gabadha aad ayaa uga helaya indhihiisana kama jeedinay kadib waxa uu sheegayaa runta Reedy wuxuuna ku oranayaa saaxiibka ayaa jeclaaday gabadhaada ama inantaada mise isagiiba hadalka labooda wuxuu oranayaa anigaaba ka helay inantaada iminka markaan arkayba wuxuuna sheegayaa inaanu ka baqayn ciidamadiisa Reedy aad ayaa u xanaaqay ciidamadiisna wuxuu ku amray inay dilaanba Siruunu dhammaantoodba mid ayaa u garaacaya ilaa ay ka baqaan marka dambe Reedy ayaa uu ku qabanaya mid waxaanu u sheegay in gabadhiisa meynantiisa uu qasab ku aroosanayo kadib waa uu baxsanaya isaga saaxiibkii daaqada ayana wif ka boodaya alinkii labaad Reedy waxa looga yeedhay xafiiska taliyaha mise waxa uu arkay Siruunu waxa uu matalayaa inuu ka baqayo taliyahana wuxuu u sheegay inuu Reedy dilayo waayo gabadhiisa ayuu rabaa inuu qasab ugu guuriyo wuxuuna tusaya video uu duubay markii ay eryanayeen ciidamadii Reedy sidoo kale waxa uu ka dalbanayaa inaanay muddo 10 cisho wax dhibaato u geysan hadduu 10 cisho ku jeclaaday inantiisa waa uu guursanaya taliyuhuna waxa uu qorayaa warqad damaanad oo ah inaan ninkan 10 cisho la taaban Reedy waa uu ka xanaaqaya waayo been ayaa laga sameeyay waanu diidayaa inuu saxeexo marka dambe si aanu Siruunu video-ga u soo dhigin baraha bulshada waa uu yeelayaa waanu saxeexaya warqadii alinkii labaad waxaan arkaynaa Siruunu oo la jooga asxaabtiisa mise waxa meesha imanaysa Kamuudi waxayna jabinaysaa quraarad sidoo kale waxay ku oranaysaa waan ku dilaya waxayna u sheegaysaa inaanay ku jeclaanayn muddada inta lagnin isagoo kale ah sababtoo ah dookhayga ma tihid waxayna ku oranaysaa car agteeda ka soo dhawow wuxuuna ku oranayaa waan eegi doonaa maalinkii labaad iyadoo asxaabteeda la socota ayay meel fadhiisanaysaa mise Siruunu ayaa u imanaya wuxuuna isku dayayaa inuu soo dhawaado kadib dib ayay u tuuraysaa mise nin ayaa rabay inuu dilo wuxuuna la dagaalamayaa ragga doonaya inay dilaan gabadhan isla markiiba waa iska gabadho waxa isdira asxaabtiisii ayuu ku yiri sidaan sameeyay isna waxoogaa show ayuu ku dhigay laakiin waxa uu cadeeyay inaanay ahayn marnaba asxaabtiisa ay yihiin rag doonaya inay iyaga dilaan laakiin iyadoo beentii u haysata ayay ka dhaqaaqday isaguna asxaabtiisa ayaa uu weydiinayay waryaa raba inay gabadhan dilaan isagoo fikiraya waxa uu arkaya show gabadhu berigii yaraantiisii jeclaa kadib waa iswareysanayeen wuxuuna ogaanaya inay hoteelkan degan tahay waxa uu ka dalbanaya inay gurigooda kula noolaato kadib waxa uu geenayaa ehelkiisa wuxuuna baraya dhammaan faamiligiisa wuxuuna ku odhanaya waxay nala joogaysaa ilaa inta uu fiisaha Mareykanka u soo baxayo sidoo kale waxa uu tusaya kubadii iyadoo yar ay siisay wayna la yaabaysaa kadib asxaabta Siruunu waxay la hadlayaan Kamuudi waxayna u sheegayaan in gabadh kale aqalkiisa ay joogto markiiba aqalkii ayaa imanaysa kadib iyadoo moodayna sakhraasantay ay ku horaysaa maadu gabadh kale ku joogto aqalka ayaad aniga jeclaanaysaa kadib Faasu ayaa soo baxsa wayna arkaysaa markii soo aragto iyadoo yaaban ayay qolkeedii ku laabanaysaa isla markiiba Kamuudi ayaa ka soo dabagelisay iyadoo markaasna soo jeeday oo dhabarka ka taabatay ayuu markiiba Siruunu ka soo qabanaya waanu ka soo kaxaynaya maalinkii labaad faamiliga oo dhan oo meel ku wada quraacanaya ayay Faasu waxay weydiinayaan xiriirka ka dhaxeeya iyada iyo inankooda Siruunu kadib waxay xasuusanaysaa 6 bilood ka hor wixii dhacay waxaynu arkaynaa Siruunu oo mashruuciisa u sharaxaya dadka oo dhan wayna u hambalyeynayaan Faasuna waxay ka mid ahayd shaqaalaha kadib markuu sidaa warka u xasuusanaya inay tahay gabadhii u yaraantiisii jeclaa kadib meel ayay wada fadhiisanayaan waxaanu u sheegayaa inuu jecel yahay laakiin waa ka diidaysaa waayo nin kale ayaa is jeclaayeen kadib inta uu cadhoodo ayaa uu isaga tegayaa meesha laakiin waqti badan marka uu ka soo wareego waa uu isaga qancaya waxaanu ogolaanaya inay kaliya ahaadaan dad saaxiiba
kadib waxaynu arkaynaa iyadoo murugaysan markay uga sheekaysa faamiliga waxa ka dhexeeya. Maalinka labaad waxa uu tegayaa meelaha isboortiga lagu barto, wuxuuna ka odhanaya Kamuudi asxaabteeda aniga ayaa idin baraya dabaasha. Iyaduna waxba uma aragtay, way ka xaraabaysanaysaa, waxayna ka odhanaysaa keliya biyaha haddaad 5 daqiiqo keliya hoos ugu jirto ama aad quusto waxaan ka fikirayaa jacaylkaaga inaan yeelo iyo inaan iska diido, haddaba waan ka fikiraya. Kadib waa uu maqlayaa biyaha ayaanu ku boodaya, biyaha hoostooda ayaanu ku jiraya. sababtaa waxa uu isleeyahay dadku guulaysato waa ay ku jeclaanaysaa. siduu ugu jiray biyaha waa uu suuxaya. Kamuudi markay aragtay inuusan ka soo bixin waxay isku dayaysaa inay ka soo saarto biyaha, wayna ka soo saarayaan. marka uu sidaa u soo kaco way dhirbaaxaysaa, sababtoo hadda war dhiman gaadhay. kadib markay ka dhaqaaqdo way soo eegaysaa iyadoo qoslaysa sidii inay ka hesho kale. waliba si fiican ay isku fahmayaan mar ay ciyaaraan iyo mar ay heesa qaadaanba. maalinkii labaad meel ayaa uu geynaya, wuxuu isku dayayaa inuu u sheegto jacaylkiisa, mise waxay ku odhanaysaa kuma jecli ee iga fogowniyo. una waa uu la yaabayaa siday ula dhaqmayso. marka ay meesha sidaa uga dhaqaaqdo madax ayaa bir lagaga dhufanaya. kadib rag badan ayaa dhinac walba iska istaagay, aad ayayna u garaacayaan. marka dambe midi ayaa uu midla soo baxaya, dhankiisa u soo socda oo isla geli ayay Kamuudi ku soo cararaysaa. kadib waxaynu arkaynaa iyadoo ooyeysa, isaguna midida ayaa uu iska qabanaya, aad ayaa uu garaacaya ilaa uu mid dhulka u geliyo. inta soo hadhana way ka cabsanaysaa, wayna isaga yaacayaan meesha. waqtigaas meesha waxaa imanaya Reedi, gabadhiisa ayaanu kaxaynaya. kadib waxa uu hor istaagaya Siiruunu. Reedi waxa uu sheegayaa inay noloshiisa khatar ku jirto oo nin la yidhaa Jaaja uu doonaya inuu dilo gabadhiisa. kadib waxaynu tegaynaa jeelka, waxaynu arkaynaa Jaaja. Siiruunu ayaa isna jeelka imanaya, wuxuuna weydiinayaa maxaan kugu sameeyey aad ii rabtaa inaad ii disho. wuxuuna ku odhanayaa ciidamadayda ayaad garaacday markay moolka joogeen, Kamuudina waa aad badbaadaysay markaan rabay inaan ku raadiyo, mise Reedi ayaa ii kaa sheegay. wuxuuna ku odhanayaa haddaad disho xitaa waa caadi. Siiruunu halkaas sheekada kaga hadhi maayo, waxa uu weydiinayaa sababta uu rabay inuu Kamuudi dilo. waxa uu ka odhanayaa Reedi waxa uu afduubtay walaashay weliba maalinkii arooskeeda. sidoo kale waxaan ogaaday inuu isagu dilay aabbaha iyo walaashay. waxaana rabay inaan ka argoosto, laakiin waxaan dilay nin kale. kadib waa la xidhay. markii aan sidaa u soo baxay waxaan noqday nin taajir oo gaangeyster ah weliba. kadib waxaan bartay gabadhiisii oo lagu magacaabo Faasuug, waxaana ku abuuray jacayl si aan isaga uga argoosto. weliba intaa ma ahay, aad ayaa ii jeclaatay. kadib Reedi waxa uu ogaaday inay gabadhiisii baxsatay maalinkii arooskeeda. kadib waxaan la hadlay Reedi, waxaanan u sheegay inaan inantiisa afduubtay oo aan rabay inaan dilo. waa ay maqlaysaa, waxayna ku odhanaysaa maxaad sidan igu samaysay. kadib waxa uu sheegayaa inuu Reedi dilay walaashii iyo aabihii, una raba inuu ka argoosto. midda kalena waxa uu ku odhanaya anugu maanaa ku jeclaadayba. aad ayaa u yaabaysaa. sidoo kalena waxay dareemaysaa murugo aad u badan. meeshana waa isaga dhaqaaqaysaa, sidoo kale waxay iska tuuraysaa buur aad u dheer. Siiruunu waxa uu ogaanayaa inay Faasuug iyo Kamuudi ay yihiin walaalo, wuxuuna la yaabayaa sababtay ugu sheegi weyday. marka uu aqalka tago waxay u sheegaysaa inay aad u jeceshahay Jaaja. sababta ay u jeclaatayna wax kale maahay, waxa uu badbaadiyey inan yaroo ku jirta xaalad aad u khatara iyadoo dadka kale ay daawanayeen. marka waxa ay ku jeclaatay bini'aadantinimadiisa. dhinaca kale Reedi waxa uu rabaa inuu gabadhiisa u guuriyo. markaas waxaa imanaya meesha Jaaja iyo Siiruunu. kadib Jaaja waxa uu rabaa inuu Kamuudi kaxeeyo. kadib Siiruunu ayaa ku odhanaya kaxayso oo guursho, waad isku soo baxaysaane. wuxuuna u sheegayaa inuu saaxiibkii dartii jacaylkiisa u iloobi doono. markaa Jaaja laabta ayaa uu gelinaya Siiruunu. kadib waa uu kaxaysanaya Kamuudi, meesha waa uu ka tegayaa. maalinkii laba Siiruunu iyo Jaaja ayaa kulmaya, wuxuuna u sheegayaa inuu jecel yahay Kamuudi, cid aan aniga ahayna ma guursanayso. wuxuuna ka odhanaya haddaan saaxiibka ahay ii soo celi jacaylkayga. kadib waa uu ka tegayaa. markii habeenkii la gaadho Siiruunu waxa uu tegayaa qolkii ay joogtay Kamuudi, wuxuuna rabaa inuu meesha kala baxsado. Jaaja seediga oo moobil daawanaya ayaa uu ka dhacayaa moobilkii. moobilkiiba waxa uu duubaya Siiruunu iyo Kamuudi oo baxsanaya. kadib waxa uu u geenaya walaasheed Faasuug, wax walbana way u sheegaysaa. Kamuudina waa ay ka raali gelinaysaa Siiruunu wax walba ay ku samaysay. marka aroortii la gaadho Jaaja waxa uu ogaanayaa inay Kamuudi aqalka joogin, raggiisina waxa uu ku amrayaa inay meel kasta ka soo raadiyaan. dhinaca kale Siiruunu waxa uu la joogaa Reedi, wuxuuna isaga dhigayaa inay rooxaantii Kamuudi ka dhex hadlayso uuna waashay. marka si dhaba u arkaan waxay moodayaan rooxaantii inay arkeen, mana rumaysanayaan. wuxuuna moodayaa inuu rooxaan arkay. kadib Jaaja waxa uu arkayaa sawirkii Faasuug waana u murugoonaya. sikadiisa laydhkii ayaa u baktinaya ama nalkii ayaa tegaya. Jaajana aad ayaa u baqaya, wuxuuna maqlayaa codkii Faasuug. isaga iyo raggiisuba aad ayaa u baqanaya, waxayna moodayaan in rooxaantii Faasuug ay la joogto. sidii u baqanayo mar qudhan nalkii soo laabanaya. kadib waxaa soo gelaya guriga Siiruunu, wuxuuna ku odhanaya maada Kamuudi. markiiba midbaa inta soo dabagala ayuu madaxa kaga dhufanaya wax. Siiruunu shaxdiisa ayaa ula ciyaaraya, waxaanu iska dhigayaa inay Faasuug ka dhex hadlayso. waxaanu samaynayaa ficil aan looga baran, iyaguna aad ayaa uga sii baqayaan.
isla markiibaan haddana caadigiisa ayaa uu iska dhigaya wuxuuna odhanaya waxa meeshan aan joogaa kadib waaba yaabayaan run ayay usii qaadan kale Ready waxa uu la joogaa Kamudi se Kamudi ma aha wax looga dhigay Faasu isagu wuxuu haystaa Faasu kadib isagoo yaabanaya waxa uu imanaya Sirunu waxaan ku odhanaya adeer wad waaratay kalena waxaad u aragtaa gabadhaadu inay tahay tii kala takalna ay tahay tan markaas aad darteed oo waaratay kala Chacha iyo ciidamadiisa oo meel taaganaya waxa arkayeen Kamudi iyo Sirunu oo mooto wada fuushan kadib waa yaabayaan marka ay moolka sidaa u soo galaan waxa ka soo dabagelay Sirunu waxayna ku odhanayaan meeday Kamudi isna waxa uu ku odhanaya soo aqalka joogtay kadib waxay wacayeen Kamudi waxayna ku odhanaysaa aabaha ayaa aftuubtay markiibana waxay tagayeen gurigii Ready meel kasta ayaa ay ka baarayaan wayna helayeen Ready waxa uu ogaanayaa inay Kamudi aanay rooxaan ahayn ee tahay qof caadi ah Sirunu aad ayaa uga xanaaqaya waayo waxa uu ku yiri waad waalan tahay Faasu oo dhawaaya u imanaysa waxayna ku odhanaysaa ma dhiman ee waa noolay intaas oo dhanna waxa kaliya ay garab taagnaa Sirunu oo qura marka ay wax walba u sheegtay Ready aad ayaa u murugoonaya waxaanu go'aansanaya inaanu khalad damba sameyn kii horena uu saxo sidoo kale waxa uu ogaanayaa in Faasu jeceshahay Chacha kadib Sirunu waxa uu ku odhanaya labadooduba isku guuri waa is jecel yihiin Chacha ayaa soo wacay Sirunu wuxuuna ku odhanaya aqalkaygu ma uu ku yahay marka uu sida ugu tago waxa uu ku odhanaya Kamudi kaxayso waayo markasta waxay timaadaan rooxaantii Faasu marka saaxiibka jacaylkiisa waa inaan u celiyaa mise seedigii oo taagan meel ayaa waxa ku soo dhacaya moobilkana waxa ku jira fiidiyoogii uu duubay sidoo kale Chacha waxa uu imanaysa Faasu oo rooxaan isaga dhigaysa waxayna ku odhanaysaa ay guurso adii kale uu ku dilaya reer aakhirada ayaan ahay waana ka argoosanaya Chacha waxa uu arkaya Sirunu hor taagan mise seedigii waxa uu tusaya fiidiyoo laga duubay Sirunu markii uu la baxsanayay Kamudi waxa uu ku odhanay warninka maalinka Faasu waa ku dhex jirtay ma ahayn Kamudi ninkii labaad waxaan tegin arooskii oo la diyaariyay Chacha waxa uu la yaabiyay sidoo ku guursanaya gabadhan rooxaanta ah mise seedigii isagoo meel socda ayuu wuxuu arkay Faasu iyo Sirunu wada hadlaya kadib waxa uu ka duubay fiidiyoo si uu tuso Chacha kala bilaabo arooska Faasu ayaa soo baxaysa dadka oo dhanna way baqayaan waayo waxa uu haystaa rooxaanteedii kadib waxaan arkaynaa isagoo ay agtiisa joogto isaguna waxa uu rabaa inuu geliyo silsilada guurka aad ayaanu uga baqayaa waayo waa rooxaan mar qura ayaa uu boodaya wixii meesha yaalo dhanna waa u laadaya Sirunu ayaa uu aad u dilaya sababtoo been ayaa uu sheegay xaqiiqadii ayaa uu ogaaday waxaanu ku odhanay annaga noo jilaysaa filayna ka hor kale waxaan ogaanaynaa inuu arkay markii ay wada hadlayeen wuxuuna ku odhanayaa saaxiibtinimada darteed wax walba ayaan kugu sameeyay adna waad qiyaamaysay iskoolada ayaa uu ku dhirbaaxaya waanu suuxaya sidoo kale Ready waxa uu ku odhanayaa labadaada hablood waan dilaya isna waxa uu ku odhanayaa kursiga ayaan fadhiisanaya itusbal waxa dili karayso Sirunu ayaa jooga meesha kiiba Sirunu ayaa soo kacay meeshan wacdar ayuu ka dhigay oo mid walba waa uu garaacay cidna iskama celinayso kadib isaga iyo Chacha ayaa uu dagaal dhex maraya Chachana waxa uu soo qaadanaya midi isagoo isla geli ayaa Faasu baaskooladii soo qaadanaysa kadib uu ku dhufanaysa se markiiba Sirunu ayaa isaga dhigay waxaan ku odhanay sida jacaylkaaga u dilaysaana waxa rabaa in labadiinaba isku kinkeen wuxuuna Chacha ka dalbanaya inuu iska iloobo argoosiga una guursado Faasu nolol wanaagsanna ay galaan kadib waa uu ka yeelaya waanu raali gelinaya dhammaantoodna waa heshiinayaan mid walba tuu jeclaaya uu guursanaya eeshaala akhyaaray filimkeenu maanta halkaas ayaa uu ku egyahay waxaan rajeynayaa inaad ka heshay fadlan ha iloobin inaad dhahdo subscribe like share